maanta waxaan la kulanay IGAD oo maaragtay ayaguna processkan awalna bilowgiisii seminaarana soo siiyay Nairobi aan isku aragno seminaaro Nairobi lagu siiyay quseeya guddiga u qabtay seminaaro quseeya doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland haddana halkan ugu yimid si ay bal u xog wareystaan isla markaasna ay u arkaan meesha ay wax marayaan iyagana kulan miro dhal u ahaa si wanaagsan buu ku dhacay annaguna waan u warbixinay ayaguna way noo warbixiyeen waxaase ka soo baxay in dalka iyo dadka loo turo inaysan meeshaan dhib innaba ha yaraatee aysan ka dhicinin bulshada reer Jubbaland waxaan u sheegaynaa inaysan wax dhibaato ah aysan jirin doorashadana sidii loogu talagalay ay ku dhacayso nabadna ay jirto waxyaabaha lagu soo qoraya social media inaysan waxba ka jirin been abuur ay tahay wax dhiba uusan jirin nabad ay jirto shaqadii hadda maxay ahayd doorashadana ay gabagaba tahay kulanka waxaanu ahayn baarlamaanka labadiisa gole aqalka sare iyo golaha shacabka ayaanu ahayn waxaanu ahay sagaal xildhibaan baanu ahay waxaanu ahay sagaal xildhibaan oo mid walba meesha mataqaanaa doorashadiisa ay gobolka Jubbaland ay ka wada socdaan waxay qireen in ay sharaf weyn u tahay Jubbaland dadkii Soomaaliyeed ee 1991 ku noolaa inuu sidii ugu wada nool yahay inuu sidii isu jecel yahay inuu sidii horumar sidii u doonayo taas way qireen waana arrin jirta oo ay Jubbaland ammaan ku leedahay waa arrin aanu ku faani karayno oo gobollada kale ugu faani karayno annagu Soomaalidii haddaanu nahay 91 ka hor deganay sidii baanu wada deganay u wada nool isuna wada jecelahay wax dhibaato oo dhax mari kara shacabkana ma jiro cid kastoo isku dayda inay khalkhal gelisana shacabku ma ogola in la khalkhal geliyo anagoo ah 6 musharax ayaan caawa halkan kula kulanay ka bacdina qof walba konserkiisu sheegay waxyaalaha sida electoral commissionerka sida ay mataqaanaa inay doorashada si cadaalad u wadaan inay waqtigeeda mataqaanaa doorashada aan laga dib marinin inaa mataqaanaa musharaxiinta inay helaan security ciidan iyo nabadgelyadooda laga fikiro su'aashii u dambeysay hadalkii ururintiisa ay ku khadameen waxayna weydiiyeen systemka socda iyo waxa maanta doorashada iyo nooca uu guddigu u wado raalli ma ka tihin gacantaan u taagin raalli baan ka nahay baan halkaasaa lagu gabagabeeyey waa mahadsantiin wixii nooc horba u tiimin yiraahdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.